يوسف أحمد هاجر دبجات Gudoomiyaha Gobalka Hiiraan oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Beledweyne ayaa soo saaray Amaar ka dhan ah Iskuulaada Gobolka Hiiraan dabageed oo la soo magacaabay toddobaadkii hore ayaa Amaar ka dhan ah Iskuulaada ku soo rogay gobolka in lagu xiro calanka Soomaaliya iyo kan maamulka Hirshabeelle iskuulkii amarkaasi fuli waaya ayuu sheegay in albaabada loo laabi doono guud ahaan maamulayaasha gobolka Hiiraan iskuulada ka dhiga degmooyinkooda kala duwan degmooyinka gobolka Hiiraan ee kala duwan maamulayaasha iskuulada ka dhiga gaar ahaan degmadan Beledweyne oo maanta taagana waxaan u sheegaynaa muddo 10 maalmood gudahooda iskuul kasta oo ku yaala degmada Beledweyne waxaan doonaynaa in laga taago calanka dawladda Soomaaliyeed iyo calanka dawlad goboleedka Hirshabeelle bar kasta ama iskuul kasta oo Beledweyne ku yaala ama gobolka Hiiraan meel ka mid ah ku yaala waxaan faraynaa maamulayaasha madaxda ka ah oo dhiga waxaan faraynaa inay ka taagaan muddo 10 maalmood gudahood calanka dawladda Soomaaliyeed iyo calanka dawlad goboleedka Hirshabeelle iskuulkii laga taagi waayo maamulayaashiisa waa xiraynaa waana ganaaxaynaa asigana bataata waa xiraynaa oo mamnuucayna qof walba uu leeyma sheegin haydhe han dhow leeyma sheegin qof walba hadhe qof walba uu anigu ii dhiganay hadhe qof walba uu macallinka dhigaya cidaydahay hadhe calanka dawladda Soomaaliyeed iyo calanka dawladda Hirshabeelle in laga taagaa EC way labadaas qofkan ka tirsanayno Beledweyne iskuul ku dhigi maysid ilmaha waxaad ku baraysaa man Abdullaahi Cali Abuukar TV-ga Tusmo Beledweyne